أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله الذي أدعمنا ورزقنا وأنعمنا وفضلنا مما خلقته الحمد لله على كل حال بسم الله ما شاء الله مركة أولا وحيد الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلكم وحكى السلام يا دمان أصحاب تيدا كاستمر كي قروح بدن سومالي وين هويوينكا ولا لها ما شاء الله تبارك الله ومسكينتي ولاشين أهد عصب عبد الله أو كم قاعدين أركسن بلا ما شاء الله تبارك الله ما أنتي ومالين تاريخي ومالين أد قروح بدن ومالين هستو دفاعيو يدد أن كفانو ما شاء الله تبارك الله حلقا كهرية مدة لبس سنة يبرأ مركي أن بلاوي وعن كسب بلاوي ميل هوسة dadka maanta i yaqaan imays aqoonin dadku dhan bay caan ka noqdaan ani alxamdulillahi rabbil caalamiin aniga dhanka customerkayga baa caan ka ahay garabyadeeda saa uga jeedaan hadda dadka social media ama tiktok laga yaqaano kuma soo casumin dukaanka maxaa yeelay micnaha xiriir badan nagama dhaxeeyo waxa ahay qof ku faanta customerkeeda iyo familkeeda waxa dhinacyada iga buuxo waxa ay tahay customerkayga quruxda badan iyo familkayga iyo asxaabteyda qaaliga ah labadayda garbood saaxiibtay Aisha Caagane iyo waxa dhinacayga joogto walaashay cusub baraambur abwaanadeeda ما شاء الله gadaasheeda waxa joogto walaashay Ayni dhinacyadeeda waxa joogan customerka oo aan soo koobi karin oo shalay ilaa maanta shalay jimco ahayd iyo maanta oo sabti ah ما شاء الله تبارك الله igarab taagna hadii aan u gudo galo maanta waxay tahay bisha koow ee tahay bisha 10aad maalin sabti ah 2022 wuxuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo fududeeyay in aan xarun labaad ka furno isla Nairobi dhexdeeda isla qaasatan xaafadda Soomaalida ee degta ee Islii qaasatan waxaan awalka hore xarunta koowaad aan ku lahayn Jam Street-ka suuqan sharjamal suuqa ku dhagan wajeer mall fast floor-ka ku lahaa haddana maanta xarunta labaad wuxuu Ilaahay noo qadar inaan ka furno isla Islii baahiyo jira awgooda dad baa shaqshantiri iga soo lugayn jiray dad baa 12ka iga imaan jiray gabdhaha umule iskugu jiraan dhan walba ay customerkayga iskugu jireen marka mar walba waa fogtaa sidii ii lahaa insha Allah ta'ala waxa hadda cabashadoodii wax ka qabtaa isleeyahay dhanka tualifka asxaabti deganeed iyo dhanka meelaha dheer ka imaan jiray oo jaamko kale jaamku gali jiray ayaa Ilaahay wuxuu ii qadaray in xarun labaad aan nooga furo Yara Tower tualifka Yara Tower-ka cusub waa G44 ama G49 laba albaabu dukaanka leeyahay marka alxamdulillah aragsan bilo ku soo dhawaada idin leeyahay marka xigto ما شاء الله تبارك الله أركسن بلا خيبتي دلوات وحيابة أد أفر بدن أيان إن شاء الله تعالى كسو كرديي سيدا أني قال يجو برتي أما قبلها يجو يقانين waxa ay tahay barasho horteed ha inacina horta Soomaali tiraahdaa yaqaaneen ugu yaqaaneen waxay tahay hufnaan iyo si daacad ah inaan wax uga gado intuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala i baray ama aan ka ogahay sheegan aan bixinayo alaabaha aniga cosmetic-ga waa waxaan ku dhex jiro shaqada cosmetic-gana waa shaqo aad u culus dadka qaar way la fududahay ama business waxa loo arkaa iska fudud oo qof kasta furan karo laakiin waa business anaga ka Soomaali ahaan markii la dhaho dhibaato aad u culus badan dumarkeena ay ka soo gaarto ama hooyooyinkeena aniga marka waxa isku dayay xooga dhibaatooyin ki imaan jiray ama cabashadii badnayd in aan bal waxdan ka xalin karo ama aan ka bedeli karo systemka uu ku socday si maadaama anaga badana dad dhaqaatiirta ku xiran manihin bulshadeena marka waxa isku dayay dhaqaatiirtii maadaama lagu xidleen oo meelihii cosmetic lagu wada xiran yahay inaan u fududeeyo qofkii asagoona dhakhtar aadin inaan xalin karo sababihii dhakhtarka ku kalifi lahayd inuu aado waxa kamid ah oo kale qofka haduu gabadhii ay haara qabto kale haduu gaduud qabo kale haday gabadhi nabra ay dhibeen oo kale ay mar walba ku soo noqdaan waxa isku dayaa bifadlillah alxamdulillah inaan ma sha Allah tabaaraka si dabiici ah anigoo waxba chemical ah aan u adeegsan ama waxyaabahan cosmetic la isticmaalo oo skin peeling ka sameeyo oo maqaarka siibaayo oo xididada soo bixinaya anoon u adeegsanin oo dhibaato keenaynin ayaan waxa isku dayaa inaan wax herbal ah ma sha Allah tabaaraka qofkina asagii oo skinkiisi si dabiici ah u qurxinayo inaan ma sha Allah tabaaraka u fududeeyo inaan ma sha Allah ugu shaqeeyo waa halka ee ma sha Allah tabaaraka Allah gabdho badan ayagoo habeenkii xilli dambe ay tahay ay salaada ay igu soo duceeyaan ما شاء الله أنا قوني أقولين أو مرك وجوه رئيسي مرك لوات أي إمادان أي تهاي ومد مر لوات واش ماشي شلي أنجوجي هير كسيس هراي ومد ما أنت إسوا جارسيسي أنا قدرت كلايف تيك توك كسوا قلمي هي قدرت كيوتيوب حان لها الله بس أنا كهر
janaalkayga waxba ma soo dhigin 2 sano xataa ma dhowr sano ka horaan lahaa waxba ma soo dhigi mihi dadka social media ku xiran ama dhankan arsaaqada ay ka soo gashay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu meel kale ka arsaaqad badan na siiyo waxaan ku kalsoonahay qofka inuu si xalaal ah oo wanaagsan oo u shaqaysan karo uu horumar ku gaari karo asagoo bulshadiisina ay jeceshahay dadkiisina ay u adeegaya marka waxaan insha Allah taala diyaar u ahay xaruntan labaadna aan inoogu furo waxay tahay in dadka daacadnimada aan ugu adeegayo oo ii jecel oo igu xiran si hufnaan ah aan hoolahoodii ugu sii fududeeyo oo aan u sii dardargeliyo oo maasha Allah alaaba ka sii tayo badan haday tahay kuwa waxa carqalad iga haysan jiray alaaba hadda dibadaha ka imaanayo kala dhanka Yurub to kala hadda company-gan La Rojo kala la dhaho oo France dhankaas laga leeyahay kale aad bay igu adkaan jirtay inaan helo laakiin bifadlillaah hadda waxa way laamkaas oo dhan waan soo xirtay alxamdulillaah maasha Allah halkan Ilaahay wuxuu ii qadaray in aan safro oo safarkayga ugu horeeyay aan u baxo dhankaas iyo Imaaraadka لأجل كاستمر كي قدرتوده علاوة مجالات أنا أولين أو ما شاء الله دنك هربل كأ إن أن كدون أو أن لينك صحرته وحياة هاره لجوداوي وكلا كم ده مرك إلهي سبحانه وتعالى إلهي أي ما هذا صدق أسقناتي وأدومدي سأنا هاي إن وهذا البدن هان مبوحش عليه مرك هالكم حقوقه ما هاد علينا يا إن لما كاستمر كي يجوحرن إن وحن كلو ما شاء الله أن تهنيدي بوجادين كقاعدنا يا لما ولا له يجرب يستكسن وحن سيدو كلا ما شاء الله تبارك الله جرب يجاشان إيه أصحاب تيدا iyo familkayga iyo customerkayga waxa inta aan ku faano waa intaas halkan waxa si diiran oo ma sha Allah tabarakallah aan ka marnayn aan jeclahay insha Allah taala farxadan maanta iga maqan aan jeclaan lahaa inay iga qayb qaadato hooyaday macaan hooy macaan waa ku jeclahay heerka taagan hama soo gaari lahayn adiga la'aanta abal ana isoo korisay waxbarasho ay soo bixisay ilaa dugsi sare ilaa jaamacada ay soo gaarsiisay quraanka ay soo xifdisiisay alxamdulillah ma sha Allah ilaa hatta guri aan dhisanayay ayada ay garab taagneed oo reerkayga ii soo dhistay alxamdulillah awlaad maanta ay haysto sababteedan ku haystaa ilaahay ka sako hooy macaan maanta dadka u adeegay dabeecadda ay barta waay hooyada dhakhtarada ahayd dad badan ma ogo hooyada dhakhtarada ahayd jaamacada waxay ugu dirtay Uganda marka ii direysay waxaan haystay dhanka medicalka theory ahaana u haystay waxaan u haystay practical ahaana u haystay qaliimada ay sameyn jirtay dumarka way ka dhalin jirtay amaliyada ay sameyn jirtay surgery-ga ka qayb qaadan jirtay ma sha Allah tabarakallah marka waxaan ka haystay hobigeygu ahaa xataa marka yara inaan dhanka medicalka si fiican u barto haddana alxamdulillah waxa isleeyahay heerka hooyaday ma gaarsiisni laakiin in bulshadeeda aan ku saacideyn karo inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ii fududeeyay hooy macaan aad baa ku jeclahay meel iga fogaa joogtaa wadanka hooya ku maqan tahay aad baa ku salaamaya waan ku jeclahay waxa ku soo marsiinaya insha Allah ta'ala walaashi cusub waxa jeclaan lahaa inay hal eray iga dhaxdo hooyo ما شاء الله تبارك الله إلهي وحن كاغا برينا إن إلهي هو يدا كودايو اللهم آمين وإلهي عمر دير إمارة عبادة صوبنا وقوسيو إن شاء الله وكوسو دعيننا هو يدا أنا موجودة وحن لنا هاي بسم الله الرحمن الرحيم وحن بران بركان ugu talagalay waa xildhibaanadeena qaaliga ahayd ee Jubbaland ninkii yaqaan baa yaqaana ku soo dhawaada waa hooyo Khadiijo boqortooyo ku weyn sacabkii mashxarada waa aragsan hooyadeed hooyo iwan ku ducaynay Allah oo ku daa aragsan waxa dhalayo dhigeeda la aga dhambalay Khadiijo ku weyn ya gabaran la quhuri kareen دكتوريسات كتميدون كده أراجعده نقول كود عينه دنت هذا جار قولها حمر ودم بأكو حضر أهينيا ورجيده جبلان يا كسمة يكون سأحب سمتاي أركسن عربية لفي بلج أهينيا يعني إيه كما جابسن قب توصلك إهدويا وبحق المدوق ودم بأكو ديج إهين قبلا قولك كوين دلا كيت كبإهينيا ducaysanay hooyada doodna loo marabo jannada dabaqadeeda sare dahlaga ahaaga war waalidka u duceeyo dambi dhaafa loo hownaase Khadiija guulaysa waligaagada ahalha mare ما شاء الله جزاك الله أنا هذا ما صنتهاي waxa halkan jeclahay caawi ibri hooyaday abaalkeeda ima gudi karo hooy aad baa ku jeclahay qayb baa ka tahay guusheeda shalay iyo guusheeda maanta itayda bariba waxa jeclahay wadada ay tustay insha Allah inaan hore ugu socdo sidoo kale waxa garabkayga joogto saaxiibaday qaali ah ma sha Allah tabaaraka adduunka laba saaxiiba ku heesta
saaxiibadii caasho caagane iyo hal abaayo iga maqan dayman hani ayadan inta ka salaamaya ما شاء الله تبارك الله أدب أمها سنتين على أدين كنا سايقرب استكسندين ما شاء الله تبارك الله أبالكينا ماركة تكان كي جهور فراي عاشا عجنا سنة إيل جوكتي ألعبت إيل سو قديسة ما أنتنا بفضل الله لا بس أنا يبرك دب وحرون تاني كلو كتي كسي بلارن كسي قروح بدن كسي وين أي ما أنت ما شاء الله وددي هور مركة أي أيضا دين عيقل جوكتا صاحبتي قال عاشا عجنا دمرك وحال أسمار ده وحنتا دمر صاحب ماله لكن أنا كتاسوان بينيه بكاس لو صاحب إلهي وسو أدي ولا بعد ما شاء الله تبارك الله أهواي إلهي بركايو عاشا عجنا سعبك waxa halkan ayadan iga maqan oo insha Allah taala aan tahniid iyo bogaadin uga diraya kaamiramanka quruxda badan halkan joogo faraha fudud ee kaamiradan iyo videoga quruxda badan iga qaaday igu soo xirtay oo ii soo dirtay oo 8 saacadeyn dartay ii soo jeeday hodman cadceed hodman show isi ala la ma sha Allah tabarakallah oo intaas ba ayadana farxadahayga iyo guulaha aan gaarayay garab ii ahayd maanta gobol iga fogay joogtaa laakiin meeshan ay dhex taagnaa leed xiriiriha dhinacay ka noqoleed aniga ma hadli leen hodman iyo caashada dhinacayga joogaan ma sha Allah